waxaa maanta magaalada Garissa lagu dhaariyay xildhibaanada deegaan baarlamaaneedyada hoose ismaamulka ee Garissa. I, Abdul Qayyum Sugo Nuro, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly Member of Garissa County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall all times respect, uphold, preserve, protect and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the conventions of Parliament, that I shall do justice to all, so help me Allah. I, Hassan Dahir Noor, alias Hassan Gili, Office of County Assembly Member of Garissa County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my knowledge, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons and the Republic of Kenya in the office of the in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and the Convention of the Parliament, that I shall do justice to. Dhaarta kadib waxaa la doortay afhayeenka aqalka iyo ku-xigeenkiisa. Bismillahirrahmanirrahim. I, Abdi Idle Gure, having been elected as Speaker of the County Assembly of Garissa, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Speaker of the County Assembly in Garissa County. Is elected as Deputy Speaker of the County Assembly of Garissa County, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic in the office of the Deputy Speaker of the County Assembly in Garissa County. That I shall respect, uphold, preserve, protect and defend this Constitution of the Republic of Kenya. And that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and conventions of Parliament without fear or favor, affections or evil. So help me God. Warbaahinta Kulan Post ayaa waxaa mikrofoonka ee la dhex qaaday xildhibaanada ayaa dareenkooda ee maanta sida tan oo la wadaageen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacayga waa Maxamed Sheekh Cabdi Salaad, mudanaha laga soo doortay wardka Labasigaal ward. Maxaan halkan iskugu imaanay maanta maxay ahayd markii u horeysay baarlamaanka la furayay doorashadii kadib muqdii qaadatay maanta ahayd taariikh 21 maanta in la furo assembly-gana maanta wixii weynaa meeshii la xuquuqa dhaariste in MCS kala dhaariyo dhaariste markay dhacday kadib waxay noqotay in doorasho la galo waxa la dooranayay speaker iyo deputy-ga waa la doortay speaker-ga waxa ku soo baxay Abdi Idle deputy speaker waxa ku soo baxay Mustafa Abdirashiid maanta waxaa la doortay waana la dhaariyay 48deena 47 ahayn halina xanuunsan Ilaahay ma aragta caafiyo oo geedi la yiraahdo waxaa la doortay speaker Abdi Idle waxaa la doortay deputy speaker Mustafa ma aragtay doorashadana si xalaal ah oo ma aragtay cadaalad ay u dhacday runtii waan ku faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay countiga wada shaqeyn ay naga dhaxayn doonto waana si fiican baan loo qaybsaday kuraasta marka insha Allah khayr baan rajaynaynaa iyo shaqo cusub. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waxaa waaye Mushma Qatra Imaan Sigad, nominated MCA Garissa County Assembly. Alhamdulillah Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaa waaye fursad qaali ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay. maanta ani qatar ahaan waa safarta labaad oo ku soo laabtay Garissa County Assembly marka alxamdulillah waan leeyahay tan labaad waxaan mahad u celinahay xisbiga isoo magacaabay mar labaad macna igu aaminay inaan maartay fursadan qaaliga aan u hayni karo mar labaad
saddexaad maanta maalin weyn baynu ahayd oo maalin farax leh waayo waxaa la dhaarinayay mudanayaasha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Garissa County kuwa la soo doortay iyo kuwa xisbiyaasha soo magacaabeen kulligoodaba jamac tan kale doorasho fiican baa dhacday si fiican baa dadka loo dhaariyay oo sharaf ku jirto oo wanaagsan alxamdulillah ilaahay uu naga aqbalay ajandada labaad aan qabnay waxay ahayd in doorasho la sameeyo oo speakerka baarlamaanka golaha baarlamaanka la doorto alxamdulillah ilaahay uu nagu guuleeyay waswaas iyo ma lahayn wax dib oo ka soo baxay meesha iyada ma lahayn majiidada aad u fiicneed maadaama dad iswaafaqsan oo walaal oo muslim baan ahayn Soomaali Maxamed meesha baarlamaanka markaan imaanay aan gudaha galno oo nala dhaariyay oo nin walba oo kitaabka gacanta ku qabsaday waxay noqotay in wixii wiilo u soo tartamay in speaker loo doorto